mustaqbalka fog tirada xad-dhaafka ah waxay ku dhowdahay inay baabiiso meeraha dhulka si loo abuuro qorshe gurmad ah haddii ay dhacdo in habnoleedkeenu fashilmo aadanuhu waxay go'aansadaan inay beddelaan jawiga Mars oo ay ka dhigaan mid ku habboon jiritaanka aadanaha habka waxaa loo yaqaan terraforming Mosku wuxuu gacan ka geysan lahaa inuu kordhiyo heerkulka meeraha oo ka dhigo mid la mid ah heerkulka dhulka si loo faafiyo cawska dushiisa baranbaro hidda ahaan loo farsameeyey ayaa loo diraa hadda waa sanadkii 2597 meel Tokyo ka mid ah laba dambiilayaal oo lagu kala magacaabo Komaki iyo Nano ayaa boolisku eryanayaan si waali ah ayay u dhex yaaceen dadkii badnaa laakiin waa la qabtay markay boolisku ku hareeraysan yihiin gaadhi mustaqbalka ah ayaa cirka ku socda oo soo degaya meel u dhow waxay halkaas u joogaan inay soo qabtaan labada dambiilayaal oo ay u adeegsadaan danahooda gaarka ah dhakhtarku waxa uu u fidiyaa si ay qayb uga noqdaan howlgalka gumaysiga Mars Komaki iyo Nano waa inay tagaan dusha sare oo ay tirtiraan dhammaan deegaanadii baranbaro maadaama aan loo baahnayn Dirhonda waxa ay ballan qaaday in ay cafin doonto dembiyadooda haddii ay ogolaadaan in ay ka qayb qaataan labadooda ayaa aqbalay dalabka laga soo bilaabo 2 sano kadib Nano iyo Komaki hadda waa la tababaray waxay ula duulayaan Mars dambiilayaal iyaga oo kale ah markab hawada sare lagu magacaabo Box 2 kabtanka markabka Keisuke Dojima waxa uu ku wargeliyey in markabku ku dhow yahay inuu ku soo degayo dusha Mars kadib markii ay ugu dambeyntii taabteen meeraha waxay arkeen in Mars uusan guduudanayn sidii ay ahaan jirtay laakiin waxay u eg tahay dhul oo kale ku faafay caws cagaaran waxay qorsheynayaan inay ku kulmaan 3 saacadood gudahood oo ay doortaan xubnaha kooxda xubin ka tirsan kooxda oo lagu magacaabo Asuka ayaa lagu lamaaniyey Yakuza laakiin si la yaab leh ayay ugu adkaysanaysaa inay la joogto kooxda khabiirka kombiyuutarka Ichiro kabtanku waa aqbalay codsiga isaga oo aan doonayn in isku dhacu kaco dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee kooxda ayaa markaa helay markab kale oo la diray 10 sano ka hor oo lagu magacaabo Box 1 Dojima waxa ay la xidhiidhay dhakhtarka oo ay u sheegtay in ay diyaar u yihiin xidhiidhka ugu horeeya dhakhtarku waxa uu bilaabay in uu si xamaasad leh u boodo isaga oo filanaya natiijooyinka hawsha kooxuhu dabadeed waxay ku tallaabaan dusha oo waxay bilaabaan inay raadiyaan baranbaro dhintay laba xubnood oo kale ah Jen iyo Maria ayaa ku wareersan in aanay baranbaro dusha ku arkin iyagoo eegaya si lama filaan ah labadooduba waxay la kulmeen 3 xayawaan oo yaab leh oo hortooda taagan baqdin darteed ayay degdeg ugu dhuntaan dhagax gadaashiisa looma sheegin wax ku saabsan makhluuqyada waaweyn ee u eg sida baranbarada anthropomorphic oo leh ulo hub ahaan dhanka kale Komaki iyo Nano kuwaas oo sidoo kale raadinaya baranbaro dhintay ayaa la kulmay isla makhluuqa Komaki wuu yaabay oo isku dayay inuu u gacan haadiyo laakiin ilbiriqsiyo gudahood makhluuqa ayaa weeraray Nano oo qoorteeda qabtay kadib waxay ku carartaa si toos ah isla markaas kooxda Jen ayaa timid oo u sheegay Komaki kulankooda makhluuqyadu sidoo kale waxay dileen Asuka waxay dib ugu soo yaaceen markabka oo waxay u sheegeen naaquudihii wax ku saabsan makhluuqa kaliya waxay ogaadeen in naaquudihii uu tan iyo bilowgii iyaga wax ka ogaa waxaa lagu amray in aanu u sheegin xubnaha kooxda wax ku saabsan makhluuqa kabtanku waxa uu sharaxay in baranbaro lasoo diray 500 oo sano ka hor ay ku kobceen xawli degdega sababtoo ah shucaaca badan hadda dhakhtarku wuxuu u muuqdaa sidii hologram kooxda hortooda wuxuuna u xaqiijinayaa dhakhtarku waxa uu isku diyaarinayay waqti dheer waxa uu u diyaariyey irbado kala duwan oo xubin kasta ah kuwaas oo siin doona awoodaha ugu sarreeya iyagoo isticmaalaya awoodahaas gaarka ah waxay kula dagaalami karaan baranbaro soo baxay si kastaba ha ahaatee xubnuhu ma rabaan inay la dagaalamaan baranbaro laakiin waxay rabaan inay ridaan howlgalka oo ay dib ugu soo duulaan dhulka isla markiiba laakiin wax yar kadib markabkooda waxaa ku hareeraysan makhluuqa xubin ka mid ah kooxda geesiyaasha ah lee ayaa mutadawiciin ah si ay baranbaradu u leexiyaan ilaa kuwa kale dib u bilaabaan farsamada bannaanka ayuu u soo baxay oo isku duraya kiimikaad uu dhakhtarku bixiyey isla marka uu taas sameeyo isbeddel degdeg ah ayaa ka bilaabma jirkiisa gudihiisa isaga oo isu beddelaya isku dhafan u dhexeeya dadka iyo kuwa la mid ah dhulka hadda lee waxa uu awoodaa in uu holac ka soo saaro jidhkiisa awoodihiisa cusub lee waxa uu la dagaalamo baranbarada kuwaas oo u muuqda in ay u xoog badan yihiin isaga oo kale wuxuu adeegsadaa awooddiisa gaarka ah oo gacantiisa ayuu dab ka soo toogtaa xoogga ololka ayaa dib u riixaya makhluuqa oo gubaya laakiin marka ay degto waxaa la arkaa in keliya exoskeleton makhluuqa uu gubtay baranbaro ayaa markaas xaggiisa u soo orday oo si toos ah u dilay dhanka kale baranbaro kale ayaa isku xirta hawada sare oo jebisa daaqadaha waxay gashaa farsamada oo isla markiiba dishaa 2 ka mid ah xubnaha taasoo ka dhigaysa kuwa kale inay u baqaan naftooda kabtanku si dhaqso ah ayuu isu duraa dawada wuxuuna bilaabay inuu horumar sameeyo dinagiisa waxaa lagu qasay
nahda qudhaanjada rasaasta kuwaas oo awood u leh in ay qaadaan waxyaabo ka badan 100 jeer miisaankooda. Kabtanku waxa uu si sahal ah dabaqa ugu jijibiyey baranbadhada oo dishay. Kooxdu way dabaaldegtaa, laakiin farxadooda way soo gaabisaa markay arkaan baranbaro badan ku sii jeeda markabka ka imaanaya raadaarka. Isagoo og inaysan la dagaalami karin dhammaantood, qof kasta wuxuu go'aansadaa inuu kaco oo dhulka ku laabto. Si kastaba ha ahaatee, marka taliyaku isku dayo inuu bilaabo markabka, matoorada ayaa xumaada oo nidaamku uu dami. Waxay u eg tahay in qof si badheedh ah u kharibiyey markabka si uu u joojiyo inuu kiciyo. Kabtanku si degdeg ah ayuu uga fikiray qorshe. Wuxuu rabaa in kooxda ay aadaan Bugs Hal oo ay keenaan dhammaan qaybaha lagama maarmaanka ah ay u baahan doonaan si ay u hagaajiyaan Bugs 2 inta uu la dagaalamo baranbarada. Qof kasta wuu ogol yahay, laakiin Ichiro wuxuu weydiisanayaa inuu la joogo kabtanka oo uu caawiyo. Ka hor intaadan u dhaqaaqin markabka kale, Komaki wuxuu aadayaa inuu arko meydka Nano markii ugu dambeysay. Wuxuu arkaa xadhkaha qariibka ah ee afkeeda ka soo baxaya, laakiin in badan kama fikiro. Hadda kooxdu waxay galaysaa gudaha Mars Roverka, kaas oo ay tahay inay dhex maraan baranbaro badan. Xubin magaciisu yahay Tezuka waxa uu bixiyaa si uu uga caawiyo in ay iska ilaaliyaan makhluuqa oo uu naftiisa ku duro daroogada. Waxa uu u xuubsiibtaa bug maclay ah kaas oo soo ridi kara xawli sare oo gaas ah qaab holac ah. Waxa uu u adeegsadaa awoodiisa in uu hore ugu dhaqaajiyo Roverka Mars isaga oo dhex mara dadka badan ee baranbarada. Dhanka kale, naaquudihii wuxuu xoogiisa oo dhan kula dagaalamayaa baranbarooyinka gudaha markabka, laakiin in badan oo iyaga ka mid ah ayaa sii gelaya. Si degdeg ah ayuu u socdaa qolka kantaroolka, uu faaruqiyo ogsajiinta ku jirta markabka si ay dhammaan baranbaro gudaha ku jirta u dhintaan neefta awgeed. Qorshihiisa wuu shaqeeyaa, isla markiiba baranbaradu waxay bilaabaan inay suuxdaan. Laakiin ogsajiin la'aantu waxay sidoo kale dhaawacdaa kabtanka, taasoo ka dhigaysa isaga iyo Ichiro labadaba inay dhulka ku dhacaan. Isla mar ahaantaana, kooxda ku jirta Roverka waxay arkaan wax weyn oo iyaga ku soo wajahan. Marka ay muuqaal cad helaan, way la yaabaan markay arkaan mawjad malaayiin ah oo baranbaro ah oo soo socota. Suka weli dib ugama noqon oo waxa uu isticmaalaa dhammaan awoodiisa si uu markabka hore ugu dhaqaajiyo. Waxay garaaceen makhluuqa oo isla markiiba si nabad ah ayay ugu degeen. Dhinaca kale ee mawjadda baranbarada, kooxda ayaa markaas si farxad leh hore ugu dhaqaaqday, laakiin muddo aan dheerayn, mawjad kale ayaa ku soo beegantay. Midkani xataa wuu ka weyn yahay hirarka kale oo ka kooban malaayiin makhluuqaad ah. Suka ma wada qaban karto iyaga, sidaa darteed laba ka mid ah xubnaha kooxda lagu magacaabo Maria iyo Osaku waxay isu beddelaan sidoo kale noocyadooda isku dhafan. Saddexdu waxay isku dayaan inay la dagaalamaan dhammaan makhluuqa, laakiin Roverku wuu rogrogaa oo si gardaro ah ayuu dhulka ugu soo degay. Saddexda ayaa dhulka lagu tuuray, halka kuwa ku dhex jira Roverka la garaacay. Roverku wuxuu noqdaa mid ku socda habka autopilot wuxuuna u kaxeeyaa xubnaha markabkii ku socday. Suka, Maria iyo Osaku waxay isku dayaan inay la dagaalamaan kaydka makhluuqa, laakiin ugu dambayn waa la dilay. Marka kooxda ku jirta Rover ka ay miirkooda dib u helaan, waxay mar hore joogaan Bugs Hal. Waxay soo galeen gudaha iyadoo laba xubnood ay ilaalinayaan albaabka. Mina waxay isku daydaa inay tijaabiso ogaanshaha markabka, waxayna isla markiiba ogaadeen in markabka uu xogta u gudbinayo qof dhulka jooga. Isla markaas kooxdu waxay maqashaa rasaas oo dibadda ayay u yaaceen. Labadii ilaaladii waa la dilay. Baranbaro waxay ka heleen hubka kutaanada waxayna u isticmaalayaan inay la dagaalamaan. Komachi wuxuu isku duraa dawada wuxuuna isu beddelay xoon weyn. Awoodda cusub ee uu helay waxa uu daldaloolada ka duri karaa, meydadka baranbarada uu hal mar ku dili karaa. Jen isla sidaas oo kale ayuu sameeyaa oo isu rogaa ayaxa saxaraha, kaas oo ka boodi kara ilaa 90 dabaq, halka Mina ay isu beddesho mantis ducaysan oo googoy kara baranbalada. Kooxdu waxay la dagaalamaan baranbarada oo ay dilaan waqti yar gudaheed. Meesha ayaa isku beddeshay takhtarkii oo qof wacay. Taleefanka waxaa qaaday mid ka mid ah baranbarada Mars. Si ka duwan baranbaro kale, waxay ku hadli kartaa Jabaan, waxayna la xiriiri kartaa dhakhtarka. Waxa uu uga digayaa xasharaadka in aanu u dhowaan Komaki mar haddii uu isbeddelo sababtoo ah cayayaanku aad buu khatar u yahay. Kadib markay dhammayso wicitaanka, baranbadu waxay gashaa gudaha markabka Bugs 2, waxay dib u wareegtaa ogsajiinteeda dabadeed jirka makhluuqa ayaa dhexda ka jeexjeexa oo ka soo baxa Asuka oo gudaha ka soo baxay. Kooxdu waxay u malaynayeen inay dhimatay, laakiin waxaa soo baxday inay waqtiga oo dhan ku jirtay dhinaca dhakhtarka. Awooddeeda gaarka ah kadib markii lagu duray waa in ay leedahay awood ay ku maamusho maskaxda baranbarada sida xasaradaha baranbaro. Marka way ishortaagtay cayayaanka si ay midba midka kale iskaga hor yimaadaan oo ay ka badbaaday. Kadib waxay dishay kabtanka oo ay biyo ku shubtay jidhka Ichiro. Ichiro sidoo kale waxa uu ku jiray qorshaha tan iyo bilowgii.
jidhkiisu waxa uu isku beddelay asiyan koronamide makhluuqa ku noolaan kara xaalado aad u daran oo keliya u baahan biyo si uu dib u soo nooleeyo. dhakhtarku waxa uu u xilsaaray hawl ay ku soo celinayaan ukunta baranbaro dhulka si ay dowladda Jabaan u tarmin karto ay u isticmaasho si ay u xoojiyaan ciidankooda. Tani waxay ahayd hamigoodii ugu muhiimsanaa. Baranbaro ciribtirka waxay ahayd uun khiyaano. Ichiro iyo Asuka dabadeed ka soo deji markabka ukun ku dhex jirto. Si kastaba ha ahaatee, ukuntu waxay bilaabataa inay dilaacdo bartamaha waxayna dhalisaa 2 baranbaro oo soo baxay. Asuka waxay isku daydaa inay isticmaasho awood si ay u maamusho, laakiin ma shaqaynayso. Makhluuqadu aad bay ugu horumarsan yihiin kuwa kale, iyaga oo ka dhigaya kuwa ugu awoodda badan dhammaantood. Waxay dilaan Asuka oo u wacaan noocooda caawimaad. Baranbarada dusha sare waxay maqlaan dhawaaqa oo baalashooda garaacaan si ay ugu duulaan markabka. Marka raxan baranbaro ahi ay ku dhufato markabka, waxa ay bilaabataa in ay xumaato oo ay shil ku ag dhacdo bugs hal. Baranbaro kobcay ayaa ka soo baxay markabka waxayna ku amreen kuwa kale inay weeraran. Komachi iyo kooxda. Komachi waxa uu isku duraa qiyaasta kale ee dawada isaga oo dardargelinaya horumarkiisa. Dhib badan kalama kulmaan baranbarada caadiga ah, laakiin kuwa soo baxay way adag tahay in laga adkaado. Mid ka mid ah ayaa dilay Mina kadib markii uu gacanta ka jeexay. Jin ayaa mar kale isku duray oo yeeshay 2 baal. Hadda baranbaro ayaa cirka u duulaya oo la dagaalama isaga. Waxay ku weeraraan 2 mawjadood mana dhintaan tiradooda dartiis. Ugu dambeyntii, Jin gartay in si looga adkaado iyaga ay tahay in ay ka adkaadaan madaxda horumarsan. Waxa uu isku duraa dhowr jeer daawada isaga oo dardargelinaya isbeddelkiisa oo ka dhigaya mid aan laga noqon karin qiyaas kasta. Intaa kadib waxa uu laaday mid ka mid ah hogaamiyeyaasha oo uu madaxa kaga garaacay awood aad u weyn. Laakiin hadda waxa uu adeegsaday dhammaan awoodihiisa mana dagaalami karo. Komachi waxa uu isku dayaa in uu Jin ka difaaco hogaamiyaha kale balse si fudud ayaa looga adkaaday. Ka hor intaanu hogaamiyuhu dilin waxa u soo duulaya makhluuqa sixir ah oo dhalaalaya. Waxay ku faafisaa boodh dhalaalaysa hareeraha oo dhan iyadoo qof kasta u eegayo cabsi. Xayawaanka duulaya waa Nano oo u xuubsiibtay qaabkeedii ugu dambeeyey. Komachi wuxuu u duulay dhanka Nano, laakiin ka hor intuusan helin iyada baranbaradii mid ka mid ah ayaa dab ku shiday. Si kastaba ha ahaatee, boodhka Nano uu fidiyey ayaa noqday qaraxyo aad u yaryar oo sababa silsilado qaraxyo ah oo qaatay dhammaan baranbarada. Jin wuu duulaa ka hor inta uusan qaraxu helin isaga oo badbaadiyey Komachi isla waqtiga. Si kastaba ha ahaatee, Nano ayaa ku dhintay qaraxa. Muddo kadib, Komachi wuu soo toosay oo arkay in Jin uu gebi ahaanba isu rogay cayayaan. Jin wuxuu weydiistay Komachi inuu aado dhulka laantiis maadaama tani ay tahay noloshiisa cusub hadda. Dib ugu noqo dhulka. Dhakhtarku wuxuu ogaaday in Ichiro ay jabsatay nidaamkooda oo ay baahinayso kulanka oo dhan adduunka oo dhan. Kaaliyaha dhakhtarku wuxuu bilaabay inuu argagaxo hadda oo sirta dowladda Jabaan la shaaciyo adduunka. Si kastaba ha ahaatee, dhakhtarku waxa uu u muuqdaa mid degan oo sheegay in uu ka iibin doono dhammaan xogta bugs dowladaha kale ee adduunka ee doonaya inay iibsadaan. Kaaliyaha ayaa qorigeeda ku fiiqday dhakhtarka markii ay u soo baxday inay basaas u tahay dowladda Jabaan. Laakiin dhakhtarku mar horeba diyaar buu u ahaa weerarka isaga oo rasaasta ka saaraya caqabad difaac ah. Kadib wuxuu ku dilay kaaliyaha sun la geliyey xaalad degdeg ah. Dib ugu soo noqoshada hawada sare, Ichiro waxa uu wacad ku maray in uu kashifi doono qof kasta oo ku lug leh hawsha. Markii la weydiiyey waxa uu rabo inuu sameeyo marka uu dhulka ku soo laabto, Komachi waxa uu ku jawaabay in uu samayn doono xabaal lagu xasuusto qof kasta oo dhintay, kadibna uu mas ku soo noqon doono mar kale. Subscribe saar si aad u hesho muuqaalo badan oo noocan oo kale ah. Sii sharagaree linkiga oo la wadaag asxaabtaada si aad u caawiso kanaalka. Hoos noogu reeb fikirkaaga, waad ku mahadsan tahay daawashada.